shirkan jaraa'ida ay sida wadajirka u qabteen labada xusbi mucaarid siyaasiyiinta madasha wada tashiga ururka saxafiyiinta Somaliland ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan Solja xubno ka tirsan golaha wakiilada iyo qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo sita boodhar ay ku xardhan yihiin ma ogolin caburinta saxaafadda oo lagaga hadlayay sidii looga dhiidhi lahaa tacadiyada lagu hayo saxaafadda madaxa bannaan ayaa waxa ay dhamaantoodba mas'uuliyiintani si isku mid ah u cambaarayeen xarigii iyo xukunkii ay maxkamadda gobolka Maroodijeex ku riday gudoomiyihii iyo tifaftirihii wargeyska xayiran ee Haatuf kaasi oo ay sheegeen inuu ahaa mid sharciga baalmarsan iyagoo intaasi ku daray in xukuumadani ay guud ahaanba ku tumatay shuruucda waddanka u yaala iyo xorriyatul qowlka waxaana iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ay yidhaahdeen waxaa nasiib darro ah taariikhda Somaliland 23 sannadood madaxweyne laba jariidadood oo dalka ka soo baxa albaabada u xidhay oo baabi'iyey Axmed Siraayo Quraati hal jariidad saddexdii madaxweyne ee ka horreeyay midna ma baabi'in oo albaabada u xidhay waxa ka daran tirada saxufiyiinta la xidhay marka la isku daro saddexdii hore afar goorlaab ama shan goorlaab bay ka badan tahay inta isagu xilka ay la xidhay waxaa nasiib darra haddii go'aamadan ay noqon lahaayeen go'aamo xukuumad ka soo baxaya ama go'aamo iyo shuruuc lagu dhaqmayo oo baarlamaanka ah ay waxaan lagu samaynayaa aan lahayn cid lama qabin kasbi ahaan darra oo la baan maray aan lagu qaadina maartaan xeerkii saxaafadda muxuu ahay dalka u yaalay xeer 27 2004 la ansixiyay oo golaha la mariyay madaxweyne Rayaal saxay runtii laguma qaadin inuu yahay inay ahayd arintani arin baalmarsan sharcigan waxa cadeynaysa sharci subaxii anagu waxaanu tagnay 8 maxkamadda 8 horteed baa la xukumay saxaafaddu ma joogin qaraabadiisi ma joogin wax maanta dhageysanayay oo qareenadii ay ma joogin waxaba yaraatay saxaafadda madaxa bannaan looma ogolaan haddaanu xisbiyada mucaaradka nahay wana 8 baanu tagnay waxaanu ka war helnay in la xukumo la qaado la celiyay waxaanu garan weynay saacadda la keenay saacadda la xukumay cidda dhageysatay cidda u garsoortay waanu garan weynay waa arrin cajiibisa oo lalay oo nacam cajaayib u noqday ku haysa falkii shalay dhacay ama xukunkii maxkamadda gobolka ku riday gudoomiyaha wargeyska Haatuf Socod Gooyi tifaftirisa runtii kaasoo sida laga soo warramay u dhacay qaab la midrootiyay oo aan si transparent dhexaada oo dheelitiran u dhicin muddadu soo socday kiiskaas oo Solja filos badan baa ku lahayn oo la soconay garsooyaasha la soconay gudoomiyaha la xiriireynay in la helo garsoor cadaalada oo kiiska garladiisu u dhaco si cadaalada eedeysanaha iyo dadka mudiciga ay si transparent u yimaadaan maxkamadda doodooda iyo aragtidooda dhiibtaan wala socoteen aflagaadooyin baa ka dhacay wasiiraha aflagaadooyin ka geystay wasiiradii wax talaabaa lagama qaadin waxaan oran lahaa labada xisbi iyo intayna maanta ku fadhida aynu u yeedhano baarlamaanka xubnaha baarlamaanka oo aynu bal waxa ay ku yimaadeen meesha iyo waxa laga rabay waajibaadkoodu wuxuu yahay aan xusuusino waayo hadday inaga taagiyiin meesha waxba ma jiraan weey kolkaas xeer dejintu waxa weeyaan inay ilaaliso xeerarka sharciga ah kii aan sharci ahayn kii la joojiyo hebel baa diido iman waayena aqli maaha corruption-ki sidoo uu socdaa waxay weydiin lahaayeen looma imanayo hay'adihii dabagalka oo dhan baa baaba'ay maanta audit ma jiro xeer ilaalin ma jiro yacni kaad soo qaadaado mid shaqaynaya maanta kuma jiro dowladdii waa qalfoof unbaa meesha muxuuha ayaa ka taagan laakiin wixii dowlad lagu ahaa meesha uu ka baxay kolka waxaan odhan lahaa dadweynuhu ha tashadeen oo dhalinyarta waxaa jira iminka waxaa loo yeedhayaa odayaa kolkaasaa la dhahay dowladda ayida lacagna waa la siinaya dadkii u baahnaabaa meesha jooga kuwii waa laba suuqa laga qaban lahayaa waa haydin meel la dhigo muxuuha la geliya ayida xumaamadaa xumeyna waxyeello weyn
ayay dalka ku haysaa waxyeello weyn ayay ku haysaa kolkaa dabeeto waxa weeyaan inaynu ka feejignaano oo la yidhaahdo odayaashana cagaha dhiga oo wixii dalka u dana haddaad ka leexataan wixii idinku dhaca maalin dhaweyd waa mansuur lagu feedhay qaad kuyo yaaluunaan ugu tegay meesha kolkaas waxaan ka yar xishoodaynaa waa abaabkii kiisku sidoo ku bilaabmay ee loo bilaabay ayaa qalada sababtoo ah stateka ayaa yuusuf kusoo rogay iyo saxaafadda kusoo rogay kiis waxayna ahayd dadka cabanaya ee braafitka inay looyara qabsadaan oo kiis madane ka furtaan maxkamadda hadday u caddaato yuusuf waxa lagu xukumi lahaa iyo journaalkiisa intii ay ku caddaato waxa lagu xukumi lahaa magdhow hase yeeshee maanta ma stateka ayaa mudduci ku ah yuusuf mise shaksiyaad baa mudduci kala cadda lama kala garanayo stateka baa ku dacweeyey waa arrin sharciyan absolutely khaldan si kastaba ha ahaatee xayiraadda xidhxidhista iyo caburinta saxaafadda madaxa bannaan iyo sidoo kale jebinta shuruucda iyo xorriyatul qowlka ayaa ah mid kusoo noqnoqotay islamarkaana ay qabatintay xukuumadda waqti xaadirkan talada haysa maalid bulshaawi Somaliland Space Channel Hargeysa.